ما haysan practical ma aan aqoon control plus s control bravi baa wax ku dhigan jirnay oo lacala maskaxdana la kaga sheeg afkana la kaga sheegi jiray oo aan waligeyn arag toban taabo oo noo gaday booskan waa soo dhaweynayna waana u mahad celinaynaa waana ku mahadsan yihiin aad baan ugu baahanayn waxa sanadkan iskuulka ku siyaaday oo ay bulshadu ama jaariyada toban taabo ay ugu horeyso toban taabo foundation ay qabatay dhismo lagu siyaadjay iskuulka oo laba qol ah kulanti wacan oo wanaagsan mudanayaal iyo marweyn waxa sharaf weyn iyo qadarin inoo ah inaynu idinla wadaagno warbixin ku saabsan ururka toban taabo oo ah golo samafal oo ay ku mideysan yihiin ashqaash rag iyo dumarba leh oo isku xilqaamay una midoobay in ay waqtigooda aqoontooda iyo dhaqaalahoodaba ku bixiyaan oo adeegida dadkooda ku dhaqan Soomaaliya iyo Itoobiya sida ka muuqata magaca toban taabo waa taageero ama garab istaag waxaana ururkan la aasaasay bishii Oktoobar ee sanadii 2020 hadafka ururku waa inuu caawiyo bulshadiisa ama ka caawiyo arrimaha horumarinta bulshada danta guud sida caafimaadka waxbarashada samafalka iyo dawlad wanaagga muddadii uu jiray ururku oo dhan 3 sano iyo 10 bilood iyadoo markii hore uu ku shaqeyn jiray magaca guddiga horumarinta waxa uu ururku qabtay shaqooyin samafal horumarin iyo kor u qaadista wacyiga bulshadeena ku dhaqan deegaano ku yaala Soomaaliya iyo Itoobiya iyadoo uu kor u qaaday adeegyada waxbarashada caafimaadka gurmadka abaaraha iyo koortaga macaluusha mashaariicda horumarinta iyo gurmadka abaaraha Burtunle iyo Xarxaar ka qayb qaadashada dhismaha iyo kabida si joogto ah ee mushaarka macallimiinta dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Burtunle gelinta magaalada Xarxaar ee soolarka cadceedda ku shaqeeya ballaarinta dhismaha iskuulka Xarxaar dhismaha aarga deegaanka Xarxaar uu leeyahay gacna fale gelinta magaalada ee aalada soolarka oo cadceedda ku shaqeeya kabida si joogto ah mushaarka macallimiinta iskoolka hoose dhexe ee deegaanka gacna fale dhisida iyo gacan ku haynta xarun weyn oo caafimaad oo dadku ay aad u mahdiyeen gurmadka abaarihii ku habsaday geeska Afrika ee dabayaaqadii 2021 ilaa bilowgii 2022 waxa gurmad loo fidiyay qoysas gaaraya 900 oo qoys isla markaasina dhamaantood reer guura ay abaartu saameysay ahaa waxayna kala degan yihiin qoysaskaasi Soomaaliya Puntland Itoobiya kilka shanaad mashruuca afurinta danyarta iyo ciidsiinta agoomaha waxa guud ahaan afur iyo ciidsiin loo sameeyay in ka badan 886 qoys oo isugu jira danyar iyo agoomo dawlad wanaagga mudug iyo nugaal Soomaaliya ururka toban taabo waxa uu dadka deegaanka kala qayb qaatay dhismaha guddiyo wacyigelinta bulshada si ay isugu diiwaan geliyaan ugana qayb qaataan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Burtunle iyo Gaalkacyo guud ahaan shaqooyinkaasi ururku wuxuu ku soo qabtay 3 sano iyo 10 bilood dhaqaalaha ku baxay ee ururku uu maamulayayna waa lacag dhan 200,824 runtii ma haysan practical ma aan aqoon control plus s control bravi baa wax ku dhigan jirnay oo lacala maskaxdana la kaga sheeg afkana la kaga sheegi jiray oo aan waligeyn arag hadda qalabku waa naloo keenay annaga samaysan annaga control iyo waa kala naqaanaaba sheekadan waxay daaha ka rogaysaa dadaalka iyo guulaha ururka
guddiga tabantaabo waxay nagala qayb qaateen masaajidka dugsiga qur-aanka dhammaystirkiisii oo ay nala gabagabeeyeen. tabantaabo waxay shirar la tashiyo la yeelataa dhammaan qaybaha bulshada ay ka kooban tahay si ay u gaarto waxyaabaha ay hiigsanayso iyadoo mar walba warbixin iyo xisaab celin siisa waqtiga ku habboon dhammaan ciddii ku taageertay mashaariicda la fuliyey si kooban hadba mashruucii la fuliyo ama si guud sida warbixintan hadda aynu idinla wadaagayno. higsiga tabantaabo qorshaha sanadkan ee 2023-2024 waxa uu hiigsanayaa garab istaaga bulshadeena iyadoo oo la tixgelinayo dalabka bulshada waxaana inoo qorshaysan ka jawaabida baahiyo ay soo gudbiyeen bulshada ku dhaqan deegaanada Burtinle hoos yimaada sida Xarxaar iyo Reedabta iyo mashruuca degmeynta Gacanafale oo ka tirsan gobolka Mudug. mashaariicda la hiigsanayo waxaa kamid ah dhismaha xarunta maamulka iyo saldhigga booliiska oo kamid ah qorshaha degmeynta Gacanafale, suuq ganacsi ee Burtinle, ballaarinta iyo soo leegelinta iskuulka Xarxaar iyo Gacanafale, qalabaynta dugsiga farsamada gacanta ee Burtinle iyo soo leegelinta iskuulka baska ee Xarxaar, dhismaha dugsi qur'aan oo Reedabtu ay yeelanayso. afeef tabantaabo kama shaqeyso taageerida dano iyo baahiyo gaar ah ama wax shaqsi la xiriira oo lagu garanayo dano shaqsi nooca ay doonaan baaha noqdaan. mahadnaq Allah subxaanahu wa ta'aala ayaan ugu horeyn uga mahad celinaynaa oo inoo sahlay howlihii inoo qabsoomay dhammaantooda kadibna in allaala intii inagu garab istaagtay fulinta mashaariicdii inoo hirgalay haddii alle idmana nagu garab istaagi doonta howlaha dambe ee inoo qabsoomi doona. dhammaad mahadsanidin.